safaaraddeena waa aragteen intee la eg tahay meel fiicanoo waxay ku taallaa aan caadi ahayn oo brime ah laakiin haddee meeshii waa burbursan tahay waxaa ka muuqda dayac aad u fara badan iyo burbur waxaan qiyaasi karaa inay tahay annaga kolleyba safaaradda ugu weyn aan adduunku leenahay inay tan noqon karto waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yidhaahdo Soomaaliya waa soo noolaatay waa meelaha la iska fiiriyo waay dowladnimadaada iyo sharafkaaga meelaha la iska fiiriyo waay waxaan waxa weeye waa dhaxal Soomaaliya weeye ummadda Soomaaliyeed leedahay cid gaar u leh maaha waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaageedii la soo celiyo wax gaar u leeyahay safiirka maaha wax aniga aan leeyahay maaha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay maxaa yeelay anaga waan looga tegi marka haddii dadkii hore aysan shaqayn lahayn meeshaas kuma ooli lahayn markaan ka wada shaqayno inaan karaamadeenni iyo sharafkeennii aan soo wada ceshanno qof walbana karaankiisa intay tabartiisu tahay uu ka shaqeeyo burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dowlad la'aan waa soo aragnay safaarad la'aan waa soo aragnay hanti la'aan waa soo aragnay iyada naftigeeda marka waxaa loo baahan yahay annagoo wada jirna dowladdeena inaan dhisanno annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisanno oo qof walbaba waddaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba soo celiyo